lacagta dollarka ee lagu bedelayo shil Soomaaliga ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa kadib doorashada madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani oo joojiyay warshada soo saarta shil Soomaaliga. Haddaba qaybo ka mid ah sarifleyda ku ganacsata magaalada Laascaanood ee ku bedesha dollarka shil Soomaaliga ayaa looga warbixiyay halka uu marayo dollarku iyagoo loo sheegay wasi hadalka u dhigay inay u nasmeynayaan jabista uu jabay dollarku ku bedelashada lacag Soomaaliga doorashada ka dhacday maamulka Puntland. Sidoo kale bulshada ayaa soo dhaweysay jabista uu jabay dollarku ee ku bedelashada shil Soomaaliga. sarifkuna wuxuu la socdaa ka Puntland buu la socdaa dowladda Soomaaliya. Puntland sidii maamulka cusub uga dhashay sarifkii waa jabay, madaxweynahana waa u hambalyeynayna. waxaa leenahay lacagta faalisada naga xakameeyo. anagu Puntland ma sarifka wixii mataqaanaa shilinka Soomaaliga anagu isticmaalaan ma isticmaalno. sarifkana waa naga jabay 3,600,000 buu daraad marayay, maantana 6,20 iyo 7,20 iyo 8,20 buu maantana marayaa. alxamdulillah waxa loogu mahadnaqo. ummadda oo dhan waxa u wacan sarifku inuu jaba u wacan. haddaan anagu sariflayaan lahayn anagu waxaanu aad u jecelahay inuu sii dhaco, waayo waxaa jabanay qowad ku jirta bulshaduna 99% dad danyar u badan yihiin. sarifka lacagta dhacday waan soo dhaweynaynaa. waxaan rajaynaynaa inta inuu ka sii hoos maro. dadka qudhooda waxaan u sheegaynaa in haddii wixii dhaceen wixii maciishada ah in iyana hoos loo rido oo la raaco aan barti lagu sii hayn, sida waxa cuntooyinka, sharaabada, waxyaabaha wixii dollar ku yimaada ay dollarka la dhacaan, wixii maxay ahayd toy cash ku qiimeysana ay cashkooda ku qiimeysnaada. waxaan rabaa inaan halkan aan hambalyo horta ugu soo jeediyo madaxweynaha cusub Puntland Siciid Cabdilaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash. waxaan leeyahay horta hambalyo haddaan intaas waa hambalyo. haddaan u soo noqdo maciishada iyo sarifka oo runtii ilaa shalay ilaa maanta jabnaa, runtii dollarkii waa naga jabay alxamdulilah, ilaahay waa mahadale. waxaan leenahay dollarku intaa inuu kasii dhacana aad iyo aad baan u sii rajaynaynaa. runtii maciishadana inay la jabtaan u rajaynaynaa insha Allah. bismillah dhammaan waxaan aad u soo dhaweynaa haddaan nahay bulshada gobolka in sarifku dhaco, haddaan nahay ganacsatada gobolka Sool. aad iyo aad baa hadda dollarku noogu hooseeya. waxa weeye boqolkiiba wuxuuna dhimay 800 boqolkiiba dhacday, ma garatay. sidaa darteed aad iyo aad buu noo maxay khasaareeyay. iyadoo sidaasaan haddana waxaan jecelnahay inuu aad iyo aad noogu maayo inuu meel fariisto. nahay gabdhaha jooga qudaarleyda ama wadacda ama wadatada loo yaqaano ay rodatay qiimaha qudaartu aad iyo aad bay nagu kacsan tahay. dollarkiina wuu nagu jabay, marka qudaartu waa halkeedii. kiishka baradhada waxaanu ku qaadanaa $100 ama $55 markuu ugu hooseeyo. marka waxaanu doonaynaa inaan ay rodatay qiimaha maciishada aad iyo aad loo jabiyo oo dollarka uu noo raaco. magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool muddo sanadaha waxaa gacanta ku hayay Somaliland, weli kamay hirgelin lacagta shil Somaliland. Khadar Tarbi TV caalamiga badda 24 TV magaalada Laascaanood.